gabadhii waalidkeed cudurrada ku dayriyeen cidlada uga dhaqaaqeen ee derbijiifta dawarsada ka mid noqotay oo arooskii qarniga loo dhigay duniduna ay la cajabtay jaceylka ka dhexeeya iyada iyo gacaliyaheeda. hooyadeed ayaa ku tuurtay kiniisadda horteeda iyadoo kartoon ku jirta, waxayna u karantiishay kansarka korkeeda naafeeyey darteed. laakiin waxay heshay nin rageed uga fiican waalidkeed oo koolkooliyey aadna u karaameeyey, kumanaan doolarna ku daaweeyey, kaasoo u dhigay arooskii qarniga una dhisay qasri aysan weligeed ku riyoon. gabadhan oo lixaadkeeda kansar kala dhantaalay ayaa laga gooyey dibnaheedii qurxoonaa, sankeedii qorqornaa iyo dhegteeda bidix, waxayna gashay 120 qalliin oo kansarka looga daaweeyey. inay nin shukaansato ha joogtee, nin isha la raaca ama muuqaalkeedu cajabiyo may arag, waxayna ka quusatay nolosha adduunyo. qoomamiyo ciilkay u qabtay waalidkeedii dayriyey, waxa ilowsiiyey oo ka reebay mahadhooyinkii rafaadka. gacaliyaheeda oo boholyow caashaq iyo jacayl aan xad lahayn la wadaagay, waxay la soo kulantay dayac, dacdarro, kadeed iyo kurbo xargaha goostay, waxayna qarka u fuushay inay kartoon ku dhex dhimato. markii 2 bilood jirtay nafteeda ayaa khatar gashay, waxayna ku sigatay inay ku dhex dhimato kartoonkii hooyadeed ay ku riday. laakiin waxa badbaadisay, korsatay oo kafaalo qaaday nolosheeda haweenay madhashaa oo wax u badaan alle ugu deeqin, taasoo aad u carruur jeclayd. waxaa lagu faquuqaa inay cuquubo ku dhalatay oo cudurro faafinayso. inkastoo nolosheedii carruurnimo ay ku qaadatay cidlo iyo caloolyow, haddana maanta waxay haysataa daryeele dugsiye deeqsiya oo u muujiyey inaysan waxba ka duwanayn gabdhaha kale ee dunida, ayna tahay boqoradiisa uu boqolaalka qalanjooyinka kala soo dhex baxay. fadlan like saar muuqaalkan, haddaad noo sheergaraysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo duruusta shareecada islaamka? haddaba ha moogaan qur-aan classes online oo ay diyaar ku yihiin culimo awdiin adigoo gurigaaga jooga si online kuu baraya qur-aanka, axaadiista iyo luuqadda carabiga. wixii faahfaahina kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda. gabadhan oo ka dhalatay qoys danyara oo ku nool waddanka Brazil ayaa ka mid a dadka waalidkood ay dayriyeen, oo ay u dayriyeen cudurro ay ku dhasheen ama foolxumo aadamaha kale ay ku tilmaamaan. iyadoo sabi carruura ayaa jirkeeda lagu arkay cudur ku dhaca maqaarka aadamaha. waxay kaloo la soo kacday cudurka kansarka, waana midka sababay in waalidkeed ay ka fogaadaan ama karantiilaan. ugu dambayntiina hooyadeed oo sabool ahayd ayaa go'aansatay inay gabadheeda geyso meel ay ku geeriyooto. waxayna ula muuqatay inaysan caafimaadi karin, balse cudurka kansarka ay u dhiman doonto iyadoo aad u yar. waxayna ku tuurtay meel u muuqata kiniisadda, waana halka laga helay gabadhan oo kartoon ku jirta. waxaana nasiib u yeelatay inay gabadhan badbaadiso, nolosheedana wax ka beddesho haweenay Braziliana oo warbaahinta dalkaasi ay tabiyeen inay ahayd madhasho ama hooyo gablana oo wax carruura aan haysan. inkasta oo jacaylku eg yahay imtixaan, cid kastaana ay ku guulaysato iyadoo aan xirfad gaara u lahayn. in yaroo gabadhan Carmen oo kaleeta weligood kumaysa fekerin inay heli doonaan jaceylkooda ama ruux nolosha la wadaaga. gabadhan oo ah Brazilian 29 sano jira ayaa waxay qabtaa cudur ku dhaca maqaarka, kaasoo sababa inaan maqaarkeedu u adkaysan karin fallaaraha cadceedda. waxaana intaa u dheerin gabadhan iyadoo yar uu ku dhacay kansarka, waana midka sababay in laga gooyo bushmaheeda, dhegaheeda iyo qayb ka mid a sankeeda. walow dhakhaatiirtu ay ku dadaaleen inay dib u dhisaan xubnaha laga jaray, haddana laguma guulaysan. sida laga soo xigtay dhakhaatiirta, qalliimada guuldaraystay ee Carmen ayaa ka badan 120 qalliin, kuwaasoo la doonayay in dib loogu dhiso xubnaheeda. sidoo kaleeto waxa ay wax ka aragtaa hal il oo keliya, xanuunka ayaana tiray isheeda bidix. saygeeda Ilmiton oo u dhigay arooskii qarniga, kaasoo si weyn u qabsaday warbaahinta caalamka, ayaa tilmaamay in Carmen ay tahay gabadhii ku habboonayd ee 10 sano uu ka raadinayay qalanjooyinka qayrkeeda. gabadhani weligeed iskuul ama kuleej maysan gelin, waxayna nolosheeda badankeed ku qaadatay derbijiifnimo iyo dawarsi xoogaa lacaga. maadaama ay dhimatay haweenaydii soo korsatay, qoyskeeduna ay horey u dayriyeen, ayaa waxa dadku ay ku baraarugeen kolkii ay arkeen gabadha la dhibtoonaysa cudurka kansarka ee lagu magacaabo Carmen, oo loo dhigay aroos aad u qurux badan, kaasoo lagu casumay dadka danyarta iyo kuwa baahiyaha gaarkaa qaba si loo difaaco xaquuqdooda, korna loogu qaado codkooda. arooskooda oo u muuqda mid cajiiba, si heersaraana loo soo agaasimay. wixii xilligaa ka dambeeyey, Carmen waxa ay taageerayaasheedu kaga soo xirmeen barteeda Instagram-ka, oo dadka ugu jira ay hadda kor u dhaafayaan 247,000 oo qof, kuwaasoo si maalinla ay ula wadaagto nolosha ay ku sugan yihiin iyada iyo saygeeda. inaad ku dhex jirto ruuxda qof kale adigoon eegayn muuqaalkiisa iyo sida uu eg yahay ayaa ah jaceylka ugu wanaagsan ee la dhihi karo waa mid dhaba. bishaaro u gaara qurbo joogta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaata cayrta aan ku fillayn ama kuwa mushaharkoodu uusan kaafin karin qoysaskooda kala jooga dalka hooyo iyo qurbaha.
mudanayaal iyo marwooyin, tani waa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda caalamiga ee Forever Living, taasoo laga leeyahay waddanka Maraykanka. Haddii aad tahay jeemiskiin aan qurbaha haad ku hayn ama aad tahay taraagle, tani waa fursaddii aad maalqabeenka ku noqon lahayd, waxaana ka shaqaysan kartaan idinkoo jooga guryihiinna ama goobaha shaqada. kol haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama aad doonayso inaad noloshaada wax ka beddesho, fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guulaystay, heshayna abaalmarino sarreeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living. kalena xiriir WhatsApp number +1 20 64 56 20.